horta laba arrimood baa jira bismillahi raxmaani raxiim waxaa jira waxa la yidhaahdo akhristu waxay u kala baxda amba in la akhrinayo masaa'il siyaasiya marka la akhrinayo waxaa jira laba arrimood oo waaweyn. arrinta koowaad waxaa dhacda inaan akhrino wixii dhacaya markay dhacayaan inaan ka akhrino 3 meelood. dadka inta u badan annagu waxaan nahay dad wax dhageystaan. hagee ka dhageysanaa? waxaan ka dhageysanaa idaacadaha iyo telefishinada. idaacadaha telefishinada waan sheegi doonaa marka, laakiin halkeeba warku inooga yimaada annaga. okay soo ma fahmin? marka anagu 3 meelood bay dadku wax ka soo qaataa. kow wuxuu ka soo qaataa warbaahinta. qiraa'ada warbaahinta laga qaato, akhrista warbaahinta laga qaato macnay leedahay. waxaa la yidhaahdaa waa qiraa'o degdega, waa qiraa'o aan ahayn qiraa'o shaamila oo si dheelitiran looma akhrin, waana qiraa'o aan ahayn camiiq maaha, ma fogo. waa qiraa'o degdega. idaacad baa sheegtay, telefishin baa sheegay, doodaa ka dhacay, bas waa intaas weeyaan. meesha koowaad waa meesha weeyaan. meesha labaad ee laga qaato waa maxay? waxaa laga qaataa meelaha loo yaqaano majallaadka ama magaasiinada cilmiga ah, cilmi baadhista lagu baadho, amba joornaalada caadiga ah, qaybaha laqrada maqaalaadka la dhahda ee lagu soo qoro dad khaas ay qoraan. maalan ninka Thomas la dhahda Mareykanka ee asalkiisu Yuhuudi yahay wuxuu ku leeyahay Washington Post maalinkaasi maqaal. shalay wuxuu qoray maqaal darato shalay akhriyo wuxuu qoray Trump waxaan kuu sheegayaa sida aad u badbaadin lahayd dagaalka, aad u joojin lahayd. wuxuuna ka hadlay waalida Iiraan iyo waalida Israa'iil inay keeni doonto inuu bariga dhexe dumo. si taa loogu badbaadiyo maxaa la yeelaya? waa Yahuudi Israa'iil la jecel, laakiin wuxuu arkaya inay arrintan Israa'iil danteeda ahayn. marka wuxuu la hadlayay Trump, marka wax uu qoray ninkaasi wuxuu keenay marka diraasaad uu wax ku soo akhriyay. مثلا taas oo kale waxaa la mid ah in ay maaragtay qof caraba sida maaragtay nin oo maaragtay mufakira oo weyn oo caraba oo arrimaha bariga dhexe ka shaqeeya oo jasiira ka shaqeeya oo baaxiska koobaad la yidhaahdo wuxuu keenay isaguna wuxuu ku qoray jasiira, wuxuu keenay isaguna cilmi baadhis oo sheegayo dagaalkani halkuu ku dhammaan doonaa. marka taasina waa akhrista labaad weeyaan. qiraa'ada saddexaadi waa maxay ee la akhriyo? qiraa'ada saddexaad ee la akhriyo waxa weeyaan culummada istiraatiijiyiintu maxay ka qabaan. maalan muxuu ka qabaa doogyin ninka la dhahdo ee ruushka ah? muxuu ka qabaa maalan maxaa dhahdaa nufaysiga kuweytiga ah? maxay ka qabaan khubarada istiraatiijiyiinta ee faransiiska amba ingiriisku amba talyaanigu maxay ka qabaan? maxay ka qabaan khubarada Iiraan? maxay ka qabaan khubarada Israa'iil? see u akhriyaan? waa darajo saddexaad. annagu markaa labadaa qiraa'o dambe ma lihin, qiraa'ada horaan leenahay. marka qiraa'ada hore markaa maxay noqonaysaa? qiraa'o sadxi ah oon camiiq ahayn. waa war aad dhegeysatay waad ku soo celinaysaa, wax baadhis amaan soo samayn. markaas taas baa inoo keenaysaa inaan akhristeenu ay ahaato si aan u akhrinato sida aan rabno. waxaan akhrinaa waxa aan rabno. marka qaarkood wararka ma jeclanaysid inaad dhegeysatid war walba sida uu yahay. مثلا qofku inuu warka jasiira dhageysto, CNN dhageysto, markuu maaragtay inuu dhageysto maaragtay France 24, inuu dhageysto BBC London, inuu dhageysto codka America, inuu dhageysto meelo kala duwan, waxay siinaysaa aragtiyaal kala duwan. waxay siinaysaa inuu halkana ka qaato visionka jasiira, xagana visionka ay leedahay CNN to, xagana ka qaato visionka ay leedahay maxay dhahdaa France 24, xagana uu ka qaatay visionka ay leedahay BBC oo Ingiriiska, oo xagana uu ka qaatay visionka ay leedahay Mareykanka codka America. marka iyagoo la hadlaya meelo kala duwan, marka warka la hadlayo afka Soomaaliga ee ku wajahan geeska Afrika ma aha war loo sheegayo dalalka kale. war adiga ugu soo wixii shakhsiyadaada la soo diraasay aday kugu socotaa, adaa lagu siinaya kininkan. waa war uun, laakiin waa warkii BBC jasiira sheegaysa, laakiin si kala loo sheegaya. amniga soo sheegay lagu cabsiinaya. marka si baa loo sheegaya. qofkan akhrinaya si baa loogu soo qoray, isagu akhrinaya ninka Soomaaliga warka sheegaya. laakiin qof waxa soo qoray tacliiq nin Soomaaliya ma soo qorin, nin Ingiriis soo qoray, nin Mareykan soo qoray. marka sidee qofka Soomaaliga wax loogu sheegay weyn? marka way kala duwan tahay. marka saas bay u kala duwan tahay akhrisayaasha mawduucan la akhrinayo insha Allah taala. shaq dagaal kasta wuxuu leeyahay meel uu ku dambeeyo.
dagaalkan hadda Iran iyo Israa'iil u dhaxeeyo xaguu ku dambeyn doonaa horta si aan u fahano dagaalku wuxuu leeyahay dagaalka soo dhaca falsafad buu leeyahay dagaal ma dhaco bilaa falsafad dadku waxay mudan dagaalku iska dhaco iskama dhaco dagaal walba wuxuu leeyahay waan arki doonaa objective waxa dhada hadaf wuxuu leeyahay why limaada muxuu u dhacay wuxuu leeyahay kayf sidoo u dhici wuxuu leeyahay halkeen gaadhaynaa ma waxaan gaadhaynaa inaan cadowga tirtirno ma waxaan gaadhaynaa cadowga ka soo dhaadhicina geedka ma waxaan gaadhaynaa inaan miiska kusoo wada celino dadka ma waxaan wuxuu leeyahay dagaal walba adduunkan maanta ka dhacay falsafad buu leeyahay waad fahamtay soo maha marka dagaalkani falsafadiisu maxay tahay dagaalkan falsafadiisu waxa weeyaan midigta fog ee yuhuudda amba Israa'iil oo saddex qola ah midigta fog ee Israa'iil waayo waa qolo wadaada oo siyaasiyiin ah waa la baroon laba waa qolo cilmaaniyiin ah oo siyaasiyiin ah lambar 3 waa wadaado aan siyaasiyiin ahayn markay isku tageen falsafadoodu waxa weeyaan laba shay in ay bariga dhexe jirin awood la tartami kartaa lambar 2 waa inay jirto awoodda maaha waa inay Israa'iil dhulkeegu ballaadho inta imika ay fadhida maaha intii tawraada u sheegtay in la gaarsiiyo weeyaan oo ah inay Niil iyo Furaad u dhaxayaan inay qabsadaan Lebanon inay qabsadaan Suuriya inay qabsadaan Seenaaga horta istaraatiijiyan dhulkooga waa sheegi doonaa inta uu leeyahay imika dhulkan yar ana ka baxno oo dhul weyn yeelano ma fatay marka falsafada dagaalku ay saddex qol isla ogolin waa taa weey falsafada labaad ee qoladani aaminsan tahay wax weeyaan in ayna suurtagal ahayn inay Israa'iil noolaato bila dagaal Israa'iil nabadu uma fiicno ku aaminsan waa in dagaal ku jirto si ay u gaadho jannadeedii marka qolaasi waa qaladaas waxaa jira falsafad ka soo horjeeda oo ay aaminsan yihiin bidixda iyo bartamaha yuhuud waxay aaminsan yihiin Israa'iil laba shayba faa'iido uma leh waxay la harb iyo la silmi waa inay ku jirtaa jeer dagaalna inay ku jirtaa ma nabadna inay ku jirtaa ma hay meel u dhaxaysa waa inay joogto tiibay ka baxeen dagaal la silmi hadduu dagaal dhici waayo oo nabad dhacdo maxaa dhacaya waxay leeyihiin waa laga baday waa la liqaa dimuqraafi baan lagu dilaa dimuqraafi soo taqaan tiraan lagu dilaa hadduu dagaal socdo uu raagana awoodeenu ma socon karto waa imika waxa arki doonaa in leeyahay 12 cisho kadib hubku ka dhamaanayaa hadday Iran sii diraa saabu tarabtaa hoos galaya ma ila socotaa sheekho marka dagaalku uma fiicno maxaan u fiicnin nabadoon uma fiicno maxaa u fiican marka xaalad la yiraahdo la harb la silm nabadna maaha dagaalna maaha oo maxay xaaladaasi waxa weyn waa inuu dagaal dhaco la joojiyo waa inuu dagaal dhaco la joojiyo waa inuu dadku cabsadaan xaaladaas oo fiican yaa saar rumaysan bidixda rumaysan marka falsafada dagaalka yuhuud waa Israa'iiliyiintu waa saas weeyaan Iiraaniyiinta falsafadooda xarbigu waa maxay falsafadooda xarbigu waxa weeyaan ninaan awood lahayn nabad ma heli karo laabudda min quwa waa inuu awood yeelato awooduna halkay ku jirtaa waxay aamineen waxay ku jirtaa maadaama una qabateen u nisaaran yahay waxay ku jirtaa laba arimood waxay ku jirtaa inaa hub la helo culus sida nuclearka walidaalika waxa dhada nin wal oo tiknooloojiga loo diiday markuu nuclear helo waa laga cabsadaa yaa kamida Kuuriya kamida Kuuriya wadan xiran oo Iran ka dartay weeyaan gaajo weeyaan wadankaas xubin jiraan laakiin maxaa looga baqaa nuclear haysata Pakistan maxaa looga baqay nuclear haysata Hindiya maxaa looga cabsaday nuclear haysata nuclearku muxuu keenaa radci buu keenaa ima soo weerari kartid haddaad soo weerartid waxaa dhacaya adiga aniga waa babaayno marka hadan u ah dawladda Itaalka yar leh inay hub caynkaas hesho ee cuna qabatay ku jirta marka Israa'iil Iran waxay aamintay inay nuclear samaysato haba sheegi weyday inay samaynayso marka taas waa midda labaad waxay aamintay wax la yiraahdo atamawdu oo ka dhigan markii uu dhacay dawladdii Ruushku ay dhacday ee Mareykanku adduunka uu qabsaday Israa'iil waxay u aragtay cadowga koobaad ay Iran leedahay Israa'iil ma waa Mareykanka
marka waxay istiraatiiji waxay dejisay sideed maraykan ula dagaalantaa oo iskaga celisaa ilaa uu ka xoog badan yahay waxay samaysay ciidamo bad oo bila caadi ahayn oo weli marka dagaalka aan gelin oo boqolaal kuna oo haysta kumaan kun markab oo baddaha ku dhex jira oo dooniyo badan haysta marka waxaa la dhahdaa iiraan waxaa la dhahdaa quwa saaruukhiya wa quwa baxriya waa awood bad waana awood saaruukh bas labada xoog ku haysataa marka waxay aamintay iyaduna falsafadeedu inay taa tahay idan waxay aaminsan tahay dagaal ha gelin laakiin dagaalka markaad waxaad iska celinayd samayso waxay kale aaminsan wax dhahdo samayso gacmo wadamada kale kuu fadhiya libnaan falastiin maxaan ku dhahdaa yaman ciraaq suuriya meelo kaloo fara badan oo dhaqaajisid seexisid markaa doona dhaqaaji markaa doona seexi marka iyadana waxaa loo yaqaanaa wukalaa waa wakiiladii iiraan marka falsafada waxaa ka dhashay marka gacmi baa lasoo guray iminka waxaa la daciifiyey xisbullah suuriya laga adkaaday suuriya maxaa loo yaqaana ma taqaanaa suuriya waxaa loo yaqaana alxalaqa adahabiya liiraan xalaqaadka ay leedahay dowladda iiraan adduunka ku leedahay meesha ugu khatarsan ee dahabiga maxay waa suuriya meesha bay ka faraha ka baxday marka ayaantaabay iiraan jabtay markii iiraan laga qaaday markii suuriya laga qaado suuriya markii laga qaaday libnaan la daciifiyey sida dadku ay leeyihiin marka labadaa geer yaa keena arrintani arrintaa oo dhan waxaa ka dambeysay 7 Oktoobar oo ay galeen falastiiniyiintu oo ibraahim sarwar sameeyey oonan iiraan ay shaqo ku lahayn rabinna inay dhacdo ka naxdayna leanna waxaa maanta dhacay oo taaba keentay isdabiyaalkaas oo dhan taasaa keentay markaasaasa islaahay marka dhinaca dagaalka hadda la galay dhinaca strategic ah ama xeeladaha awoodeed uu mid walba haysto xeeladda awoodeed ee iiraan haysato xeeladda awoodeed Israa'iil haysato maxaa way isleedahay horta waxaan u baahannahay inaan fahanno istaraatiijiyan labadan dowladood maxay haystaan soo maaha iiraan hadda ku bilowno seen u fahanaa iiraan iiraan waxay leedahay mucaadalo matematiga marka la dhiganayo xisaabta waxaa lagu dhigaa miisaan bay leedahay iiraan la dhahdo siyaasadda taariikhda iyo diinta quwadda iiraan waa sidaa waa siyaasadda taariikhda iyo diinta okay siyaasadda markaa unu imano siyaasadda waxay u qaybsamaysaa labo waxay u qaybsamaysaa juqraafiga iyo waaqica juqraafiga iiraan iyo waaqica iiraan juqraafiga iiraan wuxuu u qaybsamayaa dhul iyo bashar dhul iyo bini aadan bashar waaqicuna wuxuu u qaybsamayaa sidee u qaybtameen talada iyo tayada dalka waxaa loo qaybiyey cimaamadaha iyo dadka madaniga cimaamadaha sheekhyada iyo dadka madaniga loo qaybiyey waa dowlad murakaba waa dowlad complete ah waa dowlad diiniya haddana dimuqraad ah soo gartay ma waa dowlad wadaad xakumo wadaadkana la doorto madaxweynaha wadanka xakumayana la doorto kala sepaare ayina kala shaqo yihiin haddana isku dhex jiraan oo amarka kala qaataan waa dowlad gaara weeyaan meela socotaa dowladdaas markaas dhulkeegu waa dhul aada u weyn ya waa 1,648,000 oo kilomitir oo isku soo wareega dhulku waxaa ku nool 90 ilaa 100 milyan oo qof yaa ku nool waxaa laga hadlaa 5 luqadood oo waaweyn laakiin waxaa ka jira 100 luqadood oo yaryar 100 luqadood oo yaryar dadka wadankaasi waxaa la oran jiray faris pershianka wuxuu ku yaalaa galbeedka asia juqraafigiisu waa muhiim jiddan waxaasi waa waxa uu bixiyay ninka dhada dooqiin ya heshiiska dhex maraya ruushka iyo iiraan waa heshiis xadaari ah oo dooqiin waa ninka ruushka oo filosofka waa waxa dhada caqliga Putin baa dhada oo dhex maraya buu yiri laba xadaaradood oo ka soo kala jeeda laba madhab ana saa akhriyay
labada xadaaradood waa maxay wuxuu yidhi xadaaradda kristinka iyo xadaaradda islaamka laakiin labada madhab wuxuu yidhi waa ortodoxka iyo shiicada xaggana waa ortodox xaggana waa shiico markaa qarbi aasiya ku taallaa turkmenistan iyo azerbaijan iyo armenia iyo badda qazwiin iyo afghanistan iyo bakistan iyo khaliijka camaan iyo cadan iyo imaaratay turkiya iyo ciraaq iyo waxaasoo dhan bay la leedahay maxay la leedahay xuduud markaa dowladdaasi la yidhaahdo maxaa dhahdaa iiraan waxyaalada yaabka ay ku taha kuu sheegaya ma fahmi karna dagaalka socda haddaan fahmi weyno shaksiyadda iiraaniga shaksiyadda iiraan qofka uma jeednaya shaksiya aljamaaciya dadka iiraan marka laisku wada geeyo waxay leeyihiin personality la dhahdo shaksiya aliiraaniya aljamaaciya iminka qofka marka soomaaliga la diraaseynayo qof haddaan u diraaseyno waxaan leenahay mahad shaksiyadiisa waa caynka personalitygiisa waa sidaas laakiin shaksiga soomaaliga markaan sheegayno qof maaha waa ummadda soomaaliyed shaksiyadeed waxaan sheegayno shaksiga iiraanigii wuxuu leeyahay 6 arrimood oo yaab badan kow maxaa ka ah wuxuu leeyahay waa shaksiya murakaba waa shaksi complicated kayf suus ku dhex jiraa waa shaksi ku faana taariikhda bershiyanka ana farisi uu ku faana si qayr caadi ah labo waa shaksi ku faana islaamka waa shaksi ku faana shiicanimada walidaalika markuu aayatullahi alkhumeini kusoo noqonayay iiraan uu diyaaradda baris ka soo raacay ee uu ku soo socday magaalada maxaa la dhahdaa tahraan muxuu yidhi waraysigii diyaaradda lagu dhex yeeshay diyaaradda dhexdeeda wuxuu u fiirsaya wuxuu yidhi 6 qarni adduunka islaamka waxaa hogaamiyey carab 7 qarni adduunka islaamka waxaa hogaamiyey turki waxay soo gaadhay waqtigay hogaaminayeen bershiyanku marka waxa ay rabaan waa kaa waadix weyaan wuxuu yidhi 6 qarni maxaanu hogaamiyey islaamka carab min khulafaa raashidiin ilaa dowla cabaasiya ilaa waxaa dhan 6 qarnina waxaa 7 qarnina waxaa hogaamiyey turki isbaaniyiintii waxay soo gaadhay waa luqadiisi waa ayatullah khomeini waqtigay hogaaminayeen iyo farisiyiintu bershiyanku iyo hogaamiyaan okay marka koowaad waa shaksiyada murakabka qofka iraadi waa labo waa shaksiya yuxibu lbaqaa waa shaksiyad jecel inuu dhiman waxaa laga sheekeynaya maaha qof intixaara oo isdila oo muftaaxi jannada ayatullah khomeini baa siiyey khameyna maaha waxay jecel yihiin in noolaadaan taariikhdooda waxaa ku jirta haddii lagu kala dooransiiyo inaad dhimatid ood taariikh geshid iyo inaad noolaatid ood badbaadisid waddanka maxaad qaadanaysaa inaad noolaatid oo waddanka badbaadisid 3 waxay nacaan inay mashruuc kale ku dhex dhalaalaan waa bershiyanku historic ba taariikhiyan islaamka u yimiday saqaafadii carabta u imatay islaamkii bay galeen saqaafadii carabigay qaateen waa bershiyankii maaha kuwa nimanka shiicada noqday kadibna maxay sameeyeen maamulkii islaamka way farisiyeeyeen walidaalika markaa u fiirsatid alaxkaam sultaaniya alaxkaam maawardi qor kullu maxaa la qaatay nidaamkii maamulka ee dowladda faris marka waxaa idhahdaa islaamku quluubtooda u galay iyakuna waxay galeen islaamka idaaradoodii administrationkii bay galeen taasina waa midda kuma dhex dhalaadaan mashaariicda shaksiyadooda way sii ilaashadaan 4 waxay leeyihin waxa dhahdaa sabri istraatiijiya horey uma jabaan walidaalika markuu maanta hadlay trump waxaa u jawaabay ayatullahi cali khamenei muxuu uga yidhi nama taqaani lama argagixiyo si noolaga cabsiyo maxaa yeelay waxaa idhahdaa 40 sano waxay ku jireen cunaqabatayn way jiraan 8 sano waxay la galeen dagaal ciraaq ay ka hadheen waxaa intaa ka baran markay sameynayaan sajaajada mookeedka aan ku naqaana sujaajada turkida waxaa ka fiican sujaajada iiraaniga afdal sajaajid fi lcaalam iiraan baa samaysa mookeedada adduunka ugu fiican imise ku samayn taqaana 40 sano gacanta qofka sujaajadii dul fadhiisto 40 sano samaynaya ee jiilba jiil ka dhaxlaya markay dhamaato oranayo awowgay baa bilaabay aabbahay baa sii waday anaa gabagabeeyey qofkaasi sabirkiisu intuu leeyahay غير عادي
soomaaliga maaha dhaafo ku dhifoo dhaaf maaha soo istaraatiiji leeyahay arinta shanaad ay leeyihiin waa maxay laba shay baa iyo qofka farisiga sitaa caqli waxaa dhahdaa waa xadaara caqliya dadka afka luqadda farisiga barta waxay dhahdaa xikmad badan baad baranaysaa laba maxay leeyihiin suufiyada nooca la dhahdo alcirfaaniya suufiyada cirfaaniga ilaah baarhka maqan labada qof isku dhex jirta qofkaas arinta ugu dambaysa waxay yaqaanaan baadhe fanu safaqaat safaqaatku waa maxay waa waxa loo yaqaano maaragtay transactionka waxa loo yaqaano dealska ma dhameeyaan sheekada way wadaan safaqaad aniga adigu heshiis ma gaadhayno maanta waxaan dhamaynaynaa inaan isfahnay beraad soo noqonaa beraad soo noqonaysaa وحقي بكره سو بلابيا سان دمك سو نقولتا ولذلك يكي يهود وتابع aad wada yaqaanaan ولذلك waxa dhacdaa bahalkan fusto qadada la cuno maartay la furay dhaxda laga saaro carabta markay la sharayaan waxa uu soo buuxiyaan miiska ninka carabki wuxuu ku dhameeyay wixii meesha yaalaba 30 min 40 wax u cunay ninka iiraaniga uu qaadaya uu furo ku dhageysanaya uu furaya waxa uu jeedii buu ku leeyahay laba hal buunay wixii meesha ka buuxay aduu maxaa cuntay وحبك ورطتي لأن أضو واحد كيف فكير يسوي وكوش شاقيو سيقول روحو كيف فكير إنه كو أخري هذه أضو كو أخرنا سأقول فكير يسوي تساعد سلا هاي ولذلك يوروب يارينتا نيكلا ويدالية يوروب عمرك ترامو لي هاي ميز كي كوسو نقانا يكو دولي هاي ديبان ويدالية صح ذكرتها هذه شخصية إيراواكا سيدان إسرائيل فانا اوكي marka dhinaca Israa'iil la fiiriyo marka maxay tahay halka taagan tano ma lagu xidhan tahay isku xireen sidee Israa'iil aanu fahanaa iyada oo aan Iiraan eegno wali istaraatiijiyadii kalmaan galin Iiraan marka Israa'iil marka aan fahmayno iyadna waxay leedahay mucaadala siyaasiya taariikhiya oo diiniya sida Israa'iil sida Iiraan laakiin way kala duwan yihiin مثلا haddaan qaadana siyaasadda Iiraan Israa'iil laba oo kala bixi maxaa kala bixi juqraafiyo iyo waaqi juqraafiyo muxuu noogu bixi dhul iyo bashar Soomaa eeg maxaan ka helay 1 milyan iyo 646 kun oo kiiloomitir weey dhulka Iiraan dhulka Israa'iil ay Falastiin ka qabsatay imika Israa'iil loo yaqaan waa ma taqaana waa 22 kun oo kiiloomitir soo wareeg iyaa ka weyn taqaana Djibouti waa 23 kun oo kiiloomitir soo wareega tan waa 22 ya 7 kun oo kiiloomitir soo wareeg dhulka dhan ay qabsatay imika ay haysato dhulkaasi wuxuu leeyahay khasaa'is Israa'iil u gaara baashas waa muhiim koo waxa uu leeyahay dhulkaasi uu fidi karaa ma haytaa dhulkaasi maxaa ka yidhi uu fidi karaa ولذلك waxa loo yaqaanaa Israa'iil dawladda sida shaaga way fidaa shaaga oo la fiday qaado labo waxa la dhadaa dhulkaasi uu soo noqon karaa hadana uu fidmi maxaa dhacaya uu soo noqon karaa inkimaash baa ku dhici karaa saddex waxa la dhadaa dhulkaasi uu isbedeli karaa xuduudaasi taqayir ku dhici karaa maya dhulka waa la waayi karaa ma suurtagal Israa'iil dhada dhulka adiga ma lahayn iska tag marka khasaa'ista ay leedahay waa sida dadka Israa'iil degan يهودا يسكود يحضر ولا سجيه وطمليان وقف وتركوب كي لبدا كون شيء لبدا سيدي مليان بحال كيف طملي بلا شيء 2 مليان وعرب وبقول كي 20 يكو عربته لبدا كون iyo kontonka waxay noqonayaan carabtu boqolkiiba konton إسرائيليان waxay noqonayaan imika boqolkiiba 80ka waxay noqonayaan konton iyo soo waxa garatay ma marka shakhsiyadda Israa'iiliguna muxuu ka duwan shakhsiyadda waan soo sheegay ma shakhsiyadda Iiraaniga shakhsiyadda Israa'iiligu waa afar shay u leeyahay shakhsiyadda Israa'iiligu waxaan waa dawlad khaalisa annaka dhulka leh annaka taariikhda leh annaka dad kale qof nagu jira ma jiro qofna la male labo taariikh maduuban soo marnay wada soo laay holocaust Mareykan Ingiriis كندا ما كسب ولا لو سو عذاب امد waxaan la nooco waa inaan meel helo dadka taariikh muddo ka shaqeeyaan waxay sameysteen waxa la sirdiya taariikh sameysteen saddex inqisaam hada jira way qaybteen xog ila isku khilaafsan yahuudigu waayo iyo Israa'iiliya isku khilaafsan inqisaam hada jira
iminka waa ilaa 9 marka la qaybinayo kuwa sharqiga kuwa ruushka kuwa Ukraine kuwa Polonia kuwa Mareykanka kuwa Canada kuwa Yurubta galbeed kuwa Yurubta bari kuwa waqooyiga Yurub ka yimiday kuwa Afrika ka yimiday kuwa maaragtay Carabta ka yimiday kuwa maaragtay usuushoodu Carab tahay kuwa diiniga kuwa aan qisaam xaada jira arinta kale ugu dambaysa waxay aaminsan yihiin xoog awood aaminsan waxay leeyihiin awood baan wax ku naqay awood baan wax ku ahaana weligeed leen marka waa taas tan dhulka marka baahno say u kala duwan labada qol insha Allah taala marka dhinaca hadda ka fiirisid dhibcaha ay kala wataan oo dhinaca strategiga ah sax weeye ama xeeladaynta dhinaca Israa'iil ay kaga horeyso Iran maxay noqonaysaa maadaama hadda ka hadalnay labadoodaba iyo asalkooda iyo waxyaabaha kala haystaan waxaan is leedahay Israa'iil way kaga horeysaa Iran dhinaca xeelada okay haddaan baarno jazakallahu khair waa su'aal muhiim haddaan baarno maxaa u ah point amba dhibco u ah oo istiraatiiji Israa'iil leedahay waliba dagaalkan maanta maaha markasta dagaalkan maanta maxay leedahay waxaan gaari karnaa ilaa 9 kow aan gaarnaa المفاجئة waxa loo yaqaan sirbeed dagaalka markay galeysay si lama filaan u gashay isma wadiyaanin baysa Iran diyaar ma ahayn dagaalka arintaasi waxa keenay waan sheegi doonaa Mareykanka siixiyay wala khidaaciyay way aqbashay khidaaci wala waalay bay aqbashay si loo waalay ba kuma soo weerarayso oo miiska ka kicin miiskan fadhinaa waxa balan u ahaa axada ma axada soo dhaafay ina Cumaan la isku yimaado jimciina waa lagu dhiftay marka isma ilaahay dagaal badhaya marka Israa'iil waxay taqaanaa wax la mufaajaada mufaajaadu waa maxay waa inay si lama filaana oo soo gaarto lama filaannimadaas maxay ahayd muhiim bay ahayd arinta labaad al-mubaghata al-harbiyya al-jawiyya irka laga soo weeraray 200 oo diyaaradood oo iyadoo war wahay soo weeraray gudahana waa laga soo weeraray oo waxa laga soo weeraray maxaa diyaaradii beeloodka aan lahayn mukhabaraat baa la shaqeysiyay qaraxyaal la sameeyay waxa la isku daray wax wada mubaaqata istiraatiijiya oo argagax galiyay dawladii Iran walaba saddex waxaa jira mukhabaraat sirdoon غير عادية يا دح فديا ودنك إيران waxa loo yaqaan اختراق داخلي gudaheeda la dhex fadhiyaa bal waxay gaarsiinayaan dadka qaarkood fi mafaasid dawla dawladdu waxay leedahay meelaha maaragtay mafaasil bay leedahay meelahaas la fadhiyaa gacantii waa la fadhiyaa xagga waa la fadhiyaa xagga waa la fadhiyaa maskaxdii waa la fadhiyaa odayga wadaadka la garab fadhiyaaba marka meesha dhan mukhabaraadku waxay u fadhiyaan si غير عادية ولذلك waxa iminka la helay الدولة العميقة دولدي هore shaha la shaqeynayay iyo intay qaarkood iska dhigeen wadaado la shaqeynay Mareykanka iyo qalbiga iyo Israa'iil dowladii Iran shaha ka hadhay iyo la imka shaqeynayay marka taasina waa maxay waa tasaddexaad weeyaan arinta afraad waxa weeyaan ciidanka cirka oo istiraatiiji ah Israa'iil cirka iyada iska haysata si waxa haysata wax ka hor iman ay jireen 200 oo diyaaradood waxay ka soo rideen laba diyaaradood say sheegeen Iiraaniintu laba diyaaradood bay ka soo rideen 200 oo diyaaradood oo shan cisho garaacaysa maxay ka soo rideen laba bas Israa'iil waxay leedahay waxba laga soo ridin ba okay marka hawada sare iyada gacanta ku haysata koow waa istiraatiiji arinta afraad ee Israa'iil haysato wax weeyaan difaaca cirka oo xoog badan waa 6 waxay haysataa difaac oo ka difaacaya Israa'iil cirka waxaana ugu khatarsan ka loo yaqaano xits waa maxay xits waa af cibri ah wuxuu ka leeyahay sahmi ya lab weeyaan lab 2 iyo lab 3 weeyaan labadaba jira labadaasoo wixii ka soo weerar ka hortagaya walidaalika marka la eego Israa'iil waxay tiri dagaal nafsiya jiray boqolkiiba 90 waa soo riday sawaariikhdina soo weeraray laakiin ragga khubarada aan xorta waxay leeyihiin boqolkiiba 70 baa la soo riday boqolkiiba 30 way dhaafeen okay taas waa maxay waxay kale leedahay dacfiga dawladaha carabta ee ku meersan maartay Israa'iil Urdun Suuriya Masar maxaan ku dhahdaa waxaan oo dhani waa maxay waa dawlad daciifa
oo u gargaaraya jiritaanka Israa'iil oo ka jira Iran taasina waa waxa point haysato waxay kale haysataa sanad qawiya saaxiib weyn dabar weyn beleedahay oo Mareykanka Israa'iil oo marka hub ka dhamaado waa loo soo beerinaya bar la isu garab taagaya dhan walba siyaasiyan iqtisaadiyan iyo askariyan waxaa kale haysataa 7 u ah qunbulo nawiya nuclear baa haysataa 80 ra'si ilaa 100 qaar 200 ba gaarsiiyaan waxaa ugu dambeyn ay haysataa tafawuq teknoloji xagga teknolojiga xoog buu horeysaa bal waxaa lagu tilmaamay inay tahay meelaha qaar dawladda kuwada adduunka teknolojiga askariga ah ee amniga ah waxaa la yidhahdaa waa dawladda labaad ama waa dawladda koowaad dawladaha la ogeyn Chinaha ka mid ah meesha iminka socdo laakiin Mareykan iyo iyada la ogyahay keeba ka kale ka faa'iideysta yaa la isku diyaa marka waxyeelada ay kaga horeyso intaas ka mid ah xagga istaraatiijiga marka dhinaca istaraatiijiga haday taa kaga sareyso dawladdan Israa'iil daciifnimada ay leedahay oo maxay tahay dhinaca waxaan ka hadalnay dhibcooyinkeeda wanaagsan laakiin daciifnimadeeda maxay noqonaysaa والله horta waa runo marka cilmiga la baarayo maartay istaraatiijiga waxa lagu baaraa afartii dhibco taqaanay waxa la eegaa awoodaha waxa la eegaa daciifnimada waxa la eegaa furasyada waxa la eegaa tahdiidaadka maxaa muhaddida oo ka soo horjeeda la eegaa si aad u miisaami kartid labada awoodo is haysta marka haddaan garanay xoogii fursadihii haysatay niqaadkii quwada ay lahayd haddaan garanay pointadii amba dhibcihii xoog ahaa maxay tahay dhibcaha daciifka Israa'iil leedahay iyadana waxaan ku soo gabagabayn karnaa 6 kow waxa ka ah masaaxada juqraafi dhulka yar waa dhul yar madfici la soo diraa 5 madfac la soo diraa wada gaaraya dhulka yar waa 20 kilomitir 20 kilomitir soo wareegaya dhulka yari waxa la yiraahdaa fi luqati al-istaraatiiji waxa la yiraahdaa niqmatun wa ni'matun dhulku haduu yar yahay mar waa ni'mad oo waddanka gacanta ku qaban kara dawladdu marna waa niqmadu waa mushkilad weeyaan diktaatooradu dhulka yar bay ka helaan dawladaha ku soo waran dhulka hore u qabsan karaan sidii Kuwait markuu qabsanayay Saddam Hussein Iraq waxay soo dhaqaaqeen imisu 6dii 8 iyo barkii subaxna dhulka oo dhan way ka waran waddanka dhanba 8 iyo barkii waayay marka taasi waa mid koowaad weeyaan waa dhulka yar weeyaan ma soo midda labaad waa maxay qofka Israa'iiliyaanki abtirsiinta dhulka male ma jecel dhulka imika maxaa la sheegayaa dad aad u fara badan baa ka baxay inta yar hogga galaa laga yiri hoggi ma gelin Libnaan Urdun bay wada tageen iyo Libnaan qasay baxeen marka waxa ugu wacan waxa dhada al-isdiwaajiyya al-jinsiyya double nationality qof wal oo Yahuudiya oo Israa'iil fadhiya muxuu leeyahay jinsiyad kale Mareykan Ukraine Ruush alabkoolska haysta meel uu ku ordu leeyahay meel uu ku baxsado leeyahay markii Iiraaniyiinta laga yiri Tahraan Faaruqiya 18 milyan oo qof baa ka baxay Tahraan niiro xuudi ku yaro iska maartay ilmeen iska heesaya wuxuu imika ma sii jeclaa Tahraan qabci ma ka tagay gabax ma Soomaaliya buu af ma waas marka taasi waa mid labaad leeyahay mid saddexaad ay leeyihiin wax weeyaan nin wal oo Israa'iiliya wuxuu dareemayaa in uu maalimaha kamida ka tagi doono Israa'iil fi المستقبل marka mustaqbalkooda Israa'iil kuma xidhaan Falastiin kuma xidhaan midda afraad wax weeyaan waxay ku xidhan yihiin dibadda markii Abdullah Masiri mufakirkii weynaa la weydiiyay ninkaasi wax kastuu siiri maanta u dhacaya su'aal baa la weydiiyay waxa laga yiri Israa'iil la goor ma jiri doontaa maanta ka hadii doonaa wuxuu waxay jiri doontaa inta uu Mareykan gargaarayo Arabtuna ay caajisiin waxba qabsan kareen ay dul yihiin inta ay jiri laakiin labada ayaantay fara ka qaadaan way iska dumiyeen uma baahna dagaal lagu qaado iyada iska soconayso in hiyar ba ku dhacay marka maxay ku dhisan tahay waxay ku dhisan tahay dibadda itikaal cala ghayr waa daciifnimada ka mid tahay waxa uu leeyahay 12 cisho kadib hubku ka dhamaanaya si difaaci karayso waddanka la amaanayo wuxuu leeyahay ciidan aan laga adkaan arinta shanaad Israa'iil haysata ma taqaana oo juqraafiga waa meesha ku taal dadka ay la deganto oo dhan midna ma jeclo markay diyaaradu soo marayeen madaafiicdu Libnaan dusheeda qaar music tumay farxad qaar ba salaad tukanayo heesay waa marka qofna kama naxayo marka juqraafigiina waa mushkilad ku yahay mushkilada kale waa taariikhdii meesha taariikhku maliyid fog
iyadana waxaas oo dhan maxay bay noqonaysaa waa dhibcihii daciifka oo keenaya marka aan u imaano dhinacan marka Iran ama Tehran maxay noqonaysaa barnaamijka dhinaca strategically ama xeeladaha ay haysato ay kaga horeyso Israa'iil maxay noqonaysaa maadaama aan hadda fiirinay dhinacan Israa'iil maadaama fiirinay dhinaca kale hadda u baxano waan fiirino xeelad iyo strategically waxyaabaha ay haysato Iran waxay leedahay ilaa 7 arrimood oo ah dhibcaha istiraatiijiga horumarka u keenaya dagaalkan waa point u galaya inay laga guuleysan karin oo ay guuleysanayso amba lala heshiin doono saa sheegi doono lambar 1 waxaa loo yaqaanaa asabr الاستراتيجي Iraaniyiintu waxay leeyihiin wax dhado way sabraan laakiin waa sabir istiraatiiji ah iminka waxaa la isweydiinayaa markii ugu horeysay waxay isticmaaleen sawaariikh waxay tuureen 150 imikana waxay tuuraan 7 hal 5 hal Israa'iil waxay tiraahdaa hubkii waan ka badinay waxay tuuraan bilaayi laakiin iyagu waxay leeyihiin waxaan ugu talagalnay annagu dagaal dheer inaan gali doono hubkii maxaan gelinaynaa kayd kolba inta loo baahan yahay isticmaaleynaa ولذلك واحد وحو soo maray dagaalka markay dagaalka galayeen 3 jaranjaro markii hore waxay isticmaaleen kamiya hub badan tawaariikh badan markii waxay isticmaaleen kamiya nawciya hub badan oo laakiin quality leh oo tayo leh imikana waxay isticmaalaan hub tayo leh oo yar laakiin tayo leh toddobaha bay tuureen toddobadii meesha ku talagalay ku dhaceen midna lama qaban fatax kala dhacdo meel ugu talagalay ku dhacay marka maxay ku talagalay saas waxay leeyihiin sabir istiraatiiji waxay leeyihiin dagaal hadduu dheeraado sidii kii Ciraaq hadduu dagaalku maaragtay uu noqdo ku ballaaran waxaa jira inuu dheeraado waqtiga ama inuu ballaadho oo bariga dhexe dhan gaadho ku talagal dagaalkaas oo wada isticmaalin waxaad heshatid marka sabir istiraatiiji leeyahay waxa uu ah waxyaalada pointka anfacaya waxaa ka mid ah dhulka juqraafiga ballaaran waad ogtahay Afghanistan waxaa loo guuleysan karaa muxuu ahaa dhulka ballaaran iyo dhulka adag iyagu waxay leeyihiin dhul ballaaran oo adag meelaha qaar dagaalka waxaa la filayaa imika inuu isku bedelo dagaal xataa magaalada la isku dhex diro wadanka dhexdiisa ciidan soo geliyaan Mareykanka Israa'iil soo galaan laakiin kuwana isku bedelaan sidii Afghanistan hadhowto la baasho ay faraha ka baxdo marka ilaa iyo sinoroyaadka way dhigeen maxaa yeelay masaaxada juqraafiga gaaraya arrinta saddexaad waa maxay waxay leeyihiin mukhaabaraad iyo kuba aan yareyn ay ku leeyihiin agee wadannada carabta iyo Israa'iil gudaheeda walidaalika Israa'iil meelahay garaacayaan imika waxay garaaceen macadka Wayzman la dhahdo cilmi baarista way dhulkay ku tirtireen meeshii mukhaabaraadka way tirtireen wadanka dhan waxay ka hayaan war yaa u soo diraya mukhaabaraad gudaha fadhiya oo ay lacag siiyaan marka mukhaabaraad iyo ay ku leeyihiin awood ay ka mid tahay waxaa kale oo ka mid ah inay leeyihiin wakiilo wadano badan u fadhiya awood weli ma isticmaal laakiin haddii hadu socdo way isticmaalaan baa qaar wadaadaha qorayeen wadaad jecel Bakar baad qorayeen away kuwii Iiraaniintu ay taabsan jireen mas'uul carabta leenay maxay ku dhaqaaqi laayeen taabsigu waa taabsi istiraatiiji ah weli ma taaban waqtiga dhaqaaqayeen ma gaarin laakiin waa loogu talagalay maalinta inay dhaqaaqaan Hizbullah iyo Iraq iyo Suuriya baashi Yaman iyo kullu maalin bay dhaqaaqayaan loogu talagalay waxaa ka mid ah awoodda ay leeyihiin sawaariikhdoodu waa highway weli waxay la sheegay inay isticmaaleen 6 nooc oo sawaariikh weli aan taabsan baa jirta waxaa jira quwadda badda waa quwadda koowaad ee bariga dhexe weeyaan weli ma taabsan ma isticmaalin waxaa ka mid ah fikradda ay haystaan qolada Iiraaniyiintu waa fikrad ku xuduudaysatay waddanka weeyaan bal ilaa dibadda taala oo haddii xitaa laga adkaado dib u soo kacaysa marka fikraddii waa la abuuray fikratu dawla fikratu shiicadan iyo maaragtay itnaa cashariyadan iyo waxay noqotay madhab siyaasi ah ideolojiya siyaasi ah marka maaha baal hore u baabaaysa waxaasoo dhan waa maxay waa awoodda ay leedahay dalka Iiraan marka aan dhinaca haddaan u imaano intaasoo awood ah hadday leedahay qof walba awood leh wuxuu leeyahay dacfi ama meelo uu daciif ku yahay haddaad waxaan ka soo hadalnay Israa'iil meelahay daciifa ku tahay marka meelaha ay hadda Iiraan ayada daciif ay ku noqonayso ama ay haddaba ku tahay dhibcooyinkaas maxay noqonayaan oo Iiraaniinta okay
اوكي ايرانيinta waxay daciif ku noqonayaan ilaa iyo maxaan ku dhahdaa 4 meelood baan oranayna in Iran iyaduna ay daciif ku tahay insha Allah taala midda koowaad maxay arinta ugu halis badan weey sheekh doctor maarta ustaad maad magacayo ay goyn gaadhay maad waxa weeyaan al-ara wa qawanan wadda kuma asturno awradiisu dibadda taala way faatay maxay ka dhigtaa wadda kuma asturno istaraatiijiya inkishaaf baa jira dusha wadda uu ka qaawan yahay hawada waa faaruq marka taasi waa dacfi ay leedahay dowladdu waxaa kale oo dacfiya si xoog la loo dhexgalay amniga ilaa uu yidhi Trump halka uu hurdo odayga waan la soconaa odayga ayatullah halka uu joogo waan la soconaa laakiin mar raba inaan dilo marka laysa baciidan canna nagama fogo marka waxa weeyaan waa gacanta waddanka aad baa loo iftiraaqay arrinta saddexaad waxa weeyaan dacfiga ay leedahay qilatu lxulafaa asxaab badan male dowladda Iiraan صاحبه بدن استراتيجيه ماله شينها اد صاحب leeyahay laakiin wali hadda ma dhaqaaqayno shiinuhu maartay ilaa uu meel gaariyo maaha saaxiib kula dhimanaya waan arki doonaa shiinuhu wuxuu waayi doonaa haddii Iiraan laga takhaluso dhibaatada weyn ee Mareykanku u soo galay dagaalka maaha inuu Israa'iil soo galayo waa shiinaha shiini ma difaacay dantiisa marka saaxiib male Israa'iil maartay xulafana male arinta afaraad ee dhibaatada weyn ku haysata waxa weyn Iiraan ee dacfiga waa xisaarka cunaqabataynta dheer 40 sano oo laga cunaqabatay teknoloji oo dhan iyo horumar oo dhan loo diiday waa problem غير caadi weeyaan arinta shanaad ee ugu dambaysa oo dawladda haysata waxa weeyaan waa maxay waa dhaqaalaha aadka u daciifka dhaqaalihi aad buu daciif u yahay waxa ka jira wadanka waxa loo yaqaan arrahaq كلمة الرهق في عربي هذا صعب دال بلادك ويدالين فرطن سنة قفك إيراني نولوشيسو كورما صعوته مركا ورهق باجر دولة ويدالين تاي شعب ويدالين ومد ويدالين تاي وحاسب على ركنا كسر قبل كذا ضعف جايستا معناتي شعبي جاس hadda dagaalkii dhacay qaladaad badan baa ka dhacay dhinacan qolyahan Iran maxaa dhihi kartaa qaladaadka istaraatiijiga ah ama aan xeeladaysanayn ay Iran gashay dagaalkan intaan lagu soo qaadin qaladka ay gashay waxay haysteen waxaas ah istaraatiijiga marka waa akhtaada ay gashay dadku in aad u fahmaan si fiican waxaan akhriyay maqaal aad u yaab badan maqaalkaas waxaa qoray nin caraba oo Faransiis ah wuxuu yidhi Tahraan sataxtariq طهران ولا قوي دونا ودن مريكا واحد سكوت تجي دوني يو إسرائيل بقى ما حد يقبل أنت بضع يعني ما قالوا وين ما طهران وسيلتهم اللي ما كنا مو قبل التلكيون قالوا قبل وما قالوا سووا قرية وحولوا وإسرائيل غير صالحة للسكن إسرائيل نوع يسكت بدي الميل اللي كريم ميل اللي كرامات خلاص وين باطل واي لماذا حساو قرية wuxuu awoodda diyaaradaha soo socda iyo maraakiibta soo socda Mareykanka iyo awoodda Israa'iil ee cirku waxay keeni doonaan inay Tahraan gubaan inta karaan awoodan laakiin awoodda Israa'iil ee badda iyo sawaariikhduna waxay keeni doontaa inay Falastiinta iyo muxtalla Israa'iil ka dhigto meel aan dib loo degi doonin yalla guban maqaal ma caadi maqaalkaas dhikaasi u qoray أخطاء هذا من استراتيجية إيران كشيء وصدح لمبر 1 وحيرو ما يستطيع بلان قادة ترامب بلا حد كا ترامب بقاده صحي ويرو ما يستطيع 100% بحي آمنين ترامب نين ماها لبون وجيلة ماها بيدا ترامب هذا يلا صحيح ترامب وجيسو وبيع مشتر وننعت وحيري دقال لقوبة سوق هذا يو ميسكا كيعنا ميسكا كما كعاي إسرائيل لو هنجبي وأنا أركي إنه هو هنجبي إسرائيل وكذا عروير وحير نديرون سوالي معي عنده قيلي هو استمع قيلي
way rumaysatay caqliga jamciga ee Israa'iil Iiraan xakuma oo ka kooban 4 qolo afartii qolo yaa shir wada gashay waxaa loo yaqaanana Conseil Sécurité Nationale waa majliska amniga ee qaranka yaa fadhiistay waxay yiraahdeen dagaal ma soo dhawo sababta jumciyada wala tabsiir dagaalkii marka maxay rumaysteen istaraatiijiyan dagaal soo ballanqaadkii Trump maya u keenay ma jira dagaal labo waxay ku dhaceen waxa loo yaqaan al-khidaac al-istaraatiiji khidaac waa maxay khidaac marka lagu waalay rasuulku Muhammad sallallahu alayhi wasallam al-harbu khud'a dagaalku waa la isku dagaa waa dagis waa la dagistu laba loo bixiya dagis normal iyo dagis istaraatiiji rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam markuu dagaalkii Badr galay wuxuu dajiyay khud'a istaraatiijiya bal nabigu dagaal ma galin sallallahu alayhi wasallam إلا وحو قال استراتيجي محو رجري فكان يوري غيرها ماشي أصعب ما هنا ما يقول لك وش حتى عيدكم موج بري والله بحيا قال الله بحيا بري أو غير الله بحيا الله صعب بركة واحد يكون عن هوج بيكون عن الله فقي أو الله يقانو والله دقي سي استراتيجية أنا استراتيجي بكون عن أنا تصدق هذا بحي إسرائيل أصلا إسرائيل إيران أصلا إيران اسكو مد ديارين بين إسرائيل دغالانتو إسرائيل waxa uu sameeyay kuwa kala dagaalama inay gudaha Iran kala dagaalanto ma isku diyaarin ma isku diyaarin waxay tiri waxa la dagaalamaya Hezbollah iyo ciidamada Iran masaakiinta goobaha soo bedelay lacag baan ku bixiyaa qatarasiyan ku bixiyaa iyaka mashquulinay waxay sameeyay waxa dhado ishqaalu Israa'iil an Iran way faatay in Israa'iil laga mashquuliyo Iran laakiin maxaa dhacay لقوا مشغول إيران ولا سؤال لا يدكوي كعمي هلا صوت يا هذا مركا يدا ما تدري مركا يدي ويفهم بالأساس إيران واحد يسكت دياريس دجالك مريكا إذا ما دي ضبط واحد أصلا شتين تالك وهدو مريكا كويدا هذا إسرائيل إيران ويرر وهي يسمين له برا حق يسمين له سعودي يا قطر يا إمارات يا عمان إني قلتوا خليج كانت وحكة مركز عيدا مريكا نفر إلى جيبوتي هنا قرحيان تاوي كل ديار سيدو لكن تر ديار بو معي تناكو صبح ده محل هذا سؤال حتى هذا يا الحاج عمل غلط حاج الحساب مركز بين عرب يمني غلط بو سمي ما تان كل فن غلط بو صبح مركز غلط مساكين صبح مركز صدح هذا ريموت يا هيد اخطاء استراتيجيه ee dagaalkan Iran ay ku dhacday marka tan hadii ay dhinacan tahay Iran tay ku dhacday ma la dhihi karaa waxa jiro dhinac dagaalkan hadda Israa'iil ku jirto strategic ahaan ama xeeladeyn ahaan qaladaad ay gashay ma jiraan haday jiraan maxay yihiin Israa'iil okay haday ay gashay saddex qalad oo waaweyn Iran إسرائيل واحد عشان صدق قرض وين استراتيجية دقيقة. أيه. لبوا وحكاء مين فهمين قوة إيران صاروخها اسمه لا يتقولي. حبين كي مركي ويرتي صبحي وحال لسه كأن فرحات وحي لهذين وأقول بيني. يكو صدق فرحات ده كجرا تضبية طبعا ساعة كذب. يا وحكوا بريستي كوا حبين استي كوا قلبا استي بقول يكونتون صاروخ. marka awoodu inta ay leegtahay ma ayna garneen iyaguna mukhaabaraadku warka masiin wako labo waxay khalad u fahmeen quwadda muqaawamada iyo quwadda dawladda Iran way ku khaldameen taana istaraatiijiya waxay ka tahay markay Hezbollah ka adkaanayeen maxay sameeyeen madaxdii laayeen jow madaxdii mariyeen dad badan bay laayeen oo madaxa aba kuwa askariya aba kuwa siyaasi ah waxaan u dhameynay Hezbollah Iran tiimu ku dabaqeen madaxdii bay laayeen culumadii bay laayeen nuclearka waxaan u dhameynay laakiin ma garanayaan saddex shay in meesha taalo madaxdan xukuma ciidanka waa institution waa muassasa maaha dad qof laba qof maaha institution uu saabu yaala way buuxdaa ولذلك مركب waxa la magacaabay ku beddelay laakiin taa ma habka ka dartay waxa loo magacaabay nin kasti oo meel ka madaxa 10 qof oo beddelaysa haduu mid baxo la dilo البديل موجود
institutional meesha yaala marka muqaawamadu waa urur qof ku dhisan iyo 4 qof laakiin dawladdu qof kuma dhisno waa institution waliba dawladda Iiraan dhado weyn taana Israa'iil xisaabtu way ka qaldantay arrinta saddexaad ee muhiimka wax weeyaan Iiraan markay la dagaalamayso waxay la dagaalamaysaa sadxiga ee lama dagaalamayso umqiga sadxiga waa maxay kor bay la dagaalamaysaa Iiraanta la yaqaan bay la dagaalamaysaa laakiin waxa ka maqan Iiraanta la aqoon Iiraanta la aqoon hagee fadhidaa taasina way garan weyday walidaalika waxaa dhacdaa khaladka ugu weyn ee istiraatiijiga ah ee laga yaabo xataa Mareykanku inuu galo waa mid loo yaqaano innahum laa yacrifuuna almantiqa mantiqadan ma yaqaanaan gobolkan bariga dhexe ma yaqaanaan gobolkan maaha gobol ku dhisan wixii ka dhaca Ukraine ka dhaca halkan kaba dhaco wax kale ka dhaca marka intaas bay akhdaada istiraatiijiga ay gashay dawladda Israa'iil ahayd maxaa u ah muhiim ama mudnaan dhinacan Israa'iil maxay rabtaa oo hadda iyada u ah muhiim waxaa jirta wax la dhahdo suma fahmin nuqaadka istiraatiijiga pointka iyo dhibcaha istiraatiijiga ay leedahay iyo dhibcaha dacfiga mid kasta baa leedahay suma fahmin okay dhibcahaas baa loo badilayaa waxa loo yaqaan mudnaan priority baa loo badilayaa waa la shaqaysiinayaa imika dawladda Israa'iil way shaqo tagaysaa maxay ku shaqo tagaysaa istiraatiijigii inay shaqaysiiso iyadoo miiska soo saaraysa maxaa objective oo inoo yaala marka maxaa u mudan Israa'iil waa su'aashaas waxaa ka jawaabaya kelmad ay dhahdaan mufakkiriinta waaweyn ee siyaasiyiinta ah ee istiraatiijiyada dhahdaan istiraatiijiyatu Israa'iil fi almantiqa lan wa lam tataghayyar maxay ka dhigtahay istiraatiijiyada dawladda Israa'iil ay ka leedahay gobolkan bariga dhexe isma badilayo waligii iyo alihi muxuuna isku badileen Israa'iil maxaa u istiraatiijiya Israa'iil maxaa u istiraatiijiya istiraatiijiyada Israa'iil waxaa number 1 ka ah inay ahaato dawladda ugu xooga badan bariga dhexe laba inay la jirin dawlad kuma tartanta awoodda bariga dhexe saddex inay dawladaha bariga dhexe degan ay noqdaan kuwa Israa'iil amar ka qaata afar in ay haddeeto ayna jirin muqaawamo waxa la dhahdo ama ka hortag ama maaragtay iska caabin soo afar ma fahmin waa awood waa istiraatiijiyada Israa'iil ee mantiqada mudnaanta istiraatiijiyada Israa'iil ay ka leedahay Iiraan maxay tahay imika ya waa sham tan Iiraan ay leedahay tan Iiraan ay ka leedahay Israa'iil baa leh tan waa Israa'iil mantiqada waxay kala bagu sheegay tiibay dhaadhicin Iiraan baa laga dhigay imika Iiraan maxay ka leedahay markaa sham bay ka leedahay dawladda Iiraan in la daciifiyo la gaarsiiyo darajad dawladahan carabta iyo muslimiinta kale ee ah hayi inay tiraahdo wuxuu yiri markaa Trump wuxuu yiri laa naqbalu minha illa al-istislaam wa inay isdhiibto bighayri mashruut bila shart wa inay miisa ku soo noqoto iyadoo dulli abuuri iyadoo saaf warto wa inaga la keeno number 2 waa in la burburiyo mashruuca nuclearka ee Iiraan waa in la burburiyo tadmiir number 2 number 3 waa in la burburiyo mashruuca hubka ee saaruuqa waa la tirtiro qudraadka awood waa la tirtiro number 4 waa in la rido nidaamka wadaadada almalali ee siyaasiga waddanka jira okay bal ride afarta marka lagu guuleysto maxaa dhacaya استراتيجية شنادة ugu dambaysa la dejinayaa waa maxay waxa la dhisayaa qawaacid xeerar jadiida loo sameeyaa bariga dhexe cusub waxa la garayaa bariga dhexe cusub bacda Iiraan waka meesha lagu socdo waka sharci mudnaanta Israa'iil dagaalku waa saas ma ha dagaal iska galow marka ka haday u tahay mudnaanta ama muhiimka ay u tahay Israa'iil kulay dhinaca kalena iska caabin iyo riixid iyo rabitaan baa jiro muxuu noqonayaa marka waxa muhiimka u ah Israa'iil waxaan ka wadaa maxay yahay Iiraan oo ay ayaga rabaan in ay u noqoto Iiraaniintu waxa u ah استراتيجيكال waxa u ah saddex shay oo ama lama shan shay oo tan shan ay tan shan baa number 1 in la ilaaliyo
wixii la soo dhisay inuu dumin waxaa loo yaqaanaa luqadda istaraatiijiya ximaayatu lmuktasabaat wixii aan soo dhisnay waa inaan ilaalino number one number two in ayna tegin israa'iil inay iiraan tegin dagaal aan xad dhammaad lahayn waa ina iska ilaaliso dagaalku waa inaa israa'iil ay garaacdo si ay israa'iil uga soo dhadhacda geedka wadanada khaliijkuna u dhaqaaqaan ay dhahdaan dagaal ma rabno waryaa anawaalina استراتيجيته وهكذا عدم الذهاب الى حرب لا نهايه لها بجرته لا نهايه لها اوكي صدح ان اي كل لابطو ميسكي واستراتيجي اسرائيل ان ميسكي كل لابطو لكن iyada oo wax xaqiijisay oonan dul yahay waa inay ku laabato afar waa inay isticmaasho sabirkeega istaraatiijiga u bedesho mashruuc iyo barnaamij shan waa inay gasho dagaal israa'iil u keena cabsi jiritaan haddana israa'iil cabsida jiritaan muxuu yahay waa taa imika tiri 12 cisho kadib ma haysano waxaan isku difaacno marka waxay gartahay jiritaanka marka loo cabsoodo waxbaa dhamaanay marka iyada istaraatiijiyadeeda mudnaanteedu waa taas waa shataas weeyaan kulay hadda maraykanka waxay u eg tahay inuu dagaalka soo geli doono hadallo badanna way imaanayaan xaguu ku dambayn doonaa xeeladaha maraykanka iyo kan israa'iil xaguu ku dambayn doonaa rabitaankooda okay horta maraykanku isaga naftiisu wuxuu leeyahay mudnaan buu leeyahay awlawiyuu leeyahay maxaa ka awlama taqaanaa kow waxaa ka ah in la baabiyo mashruuca nuclearka halkaa waxaa ku kulmaya labadoodii rabitaan baa ku kulmaya laba wuxuu leeyahay in la ilaaliyo israa'iil oo jiritaankeyga la hubiyo ximaayatu israa'iil la ilaaliyo taasina waxaa ku kulansmaya maraykanka iyo israa'iil arrin saddexaad waa maxay in laga saaro taa muhiimka oo tan awoodda weyn ee la tartamaysa maraykanka ee fadhida bariga dhexe waayo waa shini dariiqa la dhahda alxariir xariirta ee ka soo bilaabmaya shiinaha wuxuu soo marayaa oo lafdhabar laga dhigay iiraan maxaa bedelaya dariiqa ma taqaanaa dariiq kale oo maraykanka ay dhiseen oo hindiya maraya iyo imaaraadka kan marka la burburiyo maxaa imanaya meesha kii kale waxaa markaa laga saaraya mustaqbalka laba shay dadku tan ma fiirsanaya waxaa burburaya suuqii weynaa ee loo yaqaanay suuqii dahabka ee doolarkii lagu bedeli la doonayay ee madaxda ka hayeen shiinaha ruushka brazil iiraan turkiga iskugu jireen xataa marka sacuudiga noo tagay iyo masar iyo suuqaas ayaa la leeyahay way u dhamaatay doolarka lagama hor iman karo dagaalkaasi waa sidaas weeyaan marka munaafiskii dhaqaale ahaan la tartamayay iyo maraykanku meesha maraykanku wuxuu galayaa dagaal labaysan dagaal israa'iil difaacaya iyo danihiisiina difaacaya marka inahaasba ah waxaa maaragtay aan isleeyahay way ku kulmayaan labada dano shacab aad baa u mahadsan tahay gabagabadii kolay wax badan baa hadda ka soo hadalnay qof walba wuxuu isweydiinaya waxaa weeye mustaqbalka siduu ku dambayn doonaa dagaalkan hadda wuu bilowday meel xun buu sii marayaa wata hadda ka hadashay waa isqaraacaya mustaqbal ahaan barnaamijkan xaguu ku gabagaboobi doonaa xaguuse ku dambayn doonaa marka insha allah su-aashaas raba inaan kusoo xiro insha allah okay dagaalka horta waa dagaal weyn horta waxaan la yaabay labada dowladood markay isdirirayeen maxaa la isku diranay baa la baaray rag baa baaray waxaa la yidhi wadanka qura ee israa'iil kula tartamay sayniska iyo cilmiga iyo noqdo mataqaana iiraan waxaa la soo saaray iiraan 1979 waa lambar ya waxay soo saari jirtay 1000 cilmi baadhis waa goorma waa markay hordu dhacday waa 1979 maanta 2000 markay gaadhay waxay soo saartay 180,000 oo cilmi baadhis imise goor bay laba kaclaysay
يعني tiro ma leh 1,000 ilaa 180,000 iyo laba ka calaysay marka waxaa la yidhi Israa'iil Iiraan waxay noqotay dowladda 16aad ee international caalami ahaan ee halka cilmi baarista kammiga waxa weeyaan maaragtay tirada taya iyo tira jirto ma dowladda 16aad adduunka oo dhan 180 dowlad adduunka jira dowladda 16aad bay noqotay Iiraan maxay ku noqotay soo saarista cilmi baarista jaamacadaha iskuulada waxa dhan Israa'iil iyaduna waxay noqotay 15 iyo 20 bay u dhaxaysaa dhinacaas iyaduna wax soo saarka marka laba dowlad maxay ku tartamayaan soo saar aqoon sayniska isku yimid waxaa la yidhi dhinaca kale cajiibka wax weeyaan quwadda noociga Israa'iil waxa Iiraan waxa yidhi waxa isdul dhigtay bariyahan dambe boqolkiiba 41 dadka Iiraaniyiintu waxay dhigtaan sayniska العلوم الأساسية boqolkiiba 22 waxay dhigtaan engineers boqolkiiba 22 kale waxay dhigtaan dhakhtarnimada dad lagu qadaray boqolkiiba 5 waxay dhigtaan culumta physics-ka nuclear bay baranayaan ma ila fahanteen waxaan ku leeyahay marka maxay ku horumar gaartay naanoga kiimikada physics-ka waxaa dhan ku bartay dhinaca Israa'iil waxay dhigtay dhinaca maaragtay teknolojiga dhinaca maaragtay computerka iyo kiimikada iyo handasada iyo kooban marka dagaalkan hadda waa dagaal wuxuu ka socdaa 4 meelood qiyamka dhinaca diinta la isku haysta aniga qiyamka laba waxaa la isku haystaa mabaadi'da ideolojiyadii shiicanimo islaama iyo tawraatiyad israa'iiliya yahuudiya dhinaca saddexaad waxaa la isku haystaa tafawuqi bari dhex anaa xukumi iyo anaa xukumi dhinaca afraad oo adhigu ku yidhi islaamka waxaa soo xukumaya carab turki imikana bershiya baa xukumaya waa qaraar ay qaateen dhinaca afraad maxaa la isku hayaa waxaa la isku hayaa waxa weeyaan waa sayniskii iyo aqoontii yaa isku yimid waa la is arkayaa okay waxaad og tahay reer galbeedku waxay yidhaahdeen 5 arrimood adduunku way ka celiyeen sirta cilmiga way ka celiyeen adduunka ninkii hela way ku dilaan waa ka lagu dilaa sirta cilmiga daayish cilmiga inaad ka barti macno ma leh sir buu cilmigu leeyahay sirta dhaqaalahana dadka waa laga ceshaa dhaqaale iska yeelo soo sacuudiga trilyoon iska hayso laakiin waa lagu dili waxaa laga celinaya waxaa loo yaqaano qaanuunka dawliga maxay waxaa loo yaqaano qaraarka internationalka 5 wadan baa iska leh veto taana waa laga ceshanayaa hubka samayntiisana waa laga celinayaa hubka culus isagana waa laga ceshanayaa waxyaalada laga celiyo waxaa ka mid ah midnimada in dadku midoobaan sida Yurub u midooday Maraykan u midoobay inaku qabiilada iska ahaada qatar iyo baxrayn iyo sacuudi iyo iiraan iyo jabuuti iyo soomaaliya si kala googo si kala googo inaku laakiin waa isku tagaynaa awood baan noqonaynaa lama ogolaanayo Soomaaliya waxa garatay ma okay marka dawladaha garta arintaas way dhintaan ninka wuxuu yiri Erdogan wuxuu yiri waxa ku dhacay Iiraan oo nagu wada dhici doona maxaa yeelay dariiqa Iiraan qaado wada socona inaan dad noqonaan doonama ma qof kasto dad noqonaya marka okay dagaalka marka muxuu ku dambeyn doonaa marka su'aasha toonka joobi doona markaad eegtid waxaa la soo maray 3 shay mid u noqonaya dagaal midda koowaad waxa weeye America way hadashay Trump wuxuu qoray 3 igis iyo qoray 3 waxa ka cadaaday in uu dagaalka galayo waana hajabaadii madaxweyne uu ku hanjabo tii ugaadkeed buu ku hanjabay odaygiina hanjabaadii uu ka jawaabay wuxuu urur loo hanjabo manni anagu diyaar baa u nahay in aan dhibano waana difaacina waxba naga maqaadaysiin idan labadii ugu sarreysay way isla hadleen Israa'iil waa marka waa ilmo yaro Maraykanku uu difaacayo marka maxaa la yeelayaa maxaa ka soo baxaya waxay leeyihiin culimadu 3 mid u baa dhacaya horta waxaa la yidhi Iiraan waxay ku hadlayso lama dhageysto inta badan waxay hoosta ka samaynaysaa la dhageystaa hanjabaad Greek bay taqaanaa Iiraan waxa uu yeelanaa laakiin hoosta bay ka qabataa marka durbaba waxaa dhaqaaqay wafdiyo waaweyn oo Iiraan ah qatar bay tageen imaaraadkay tageen masar bay tageen sacuudigay tageen turkigay tageen shiina la xidhiidheen ruush bay la xidhiidheen kulla shay bay la xidhiidheen
diblomaasiyaddii way shaqaynaysaa hanjabaaddiina way shaqaynaysaa maraykankuna u hanjabay isaguna hoostiina rag buu ka daray shaqay diblomaasiyadda muxuu rabaa inuu dowladda iiraan u hanjabay miisa kusoo noqoto laakiin iyadoo daciifada iiraanna way hanjabtay waxay u hanjabtay inay miisa kusoo noqoto laakiin iyadoo quwad leh marka maxaa la yeelay su-aasha ka dhalanaysaa maxaa dhici doona ma iyadoo quwad leh soo noqoni mise iyadoon daciifa quwad lahayn marka saddex baa la filayaa marka waxaad akhridid kadib kow inuu maraykanka iyo israa'iil iiraan garaacaan hadduu israa'iil ay garaacdoon siduu ka yidhi xalay toole dagaalka sii wad iyadoo day garaacdoon iyadoo bay garaacaysaa waxayna qaatay istaraatiijiyad la yidhaahdo alxashdu bilxashdi walquwatu bilquwa waxaa samaysid baan samaynayaa haddaad deshid haddaad baabiisid meel cilmiya haddaad deshid culamaa nooc wasam xasiis baan samaynayaa taaba iiraan qaatay israa'iil labadaas way isla ciyaari karayaan laakiin hadduu maraykanku soo galo oo meeshan ford la dhahda ee uu yaalo nuclearka la isleeya u yaala qaarna ay leeyihin way ka qaadeen beri horeba waxba yaali meeshaas waa idaan hadduu garaaco maraykanku isagoo halkaa buu socdaa maxaa dhacaya okay waxaa dhacaya mid halis ah dhacaysa waata koobaad waa koobaad hadduu maraykanku soo galo uu meeshaa garaaco waxaa dhacaya inay ciidamada badda ee maarata iiraan dhaqaaqaan saddex shay ay sameeyaan inay garaacaan israa'iil xoog inay garaacaan meelaha saldhigyada maraykanka ku leeyahay bariga dhexe saddex inay badda oo dhanna maxay ku sameynayaan xidhaan nuclear ay dhigaan way dhigaan wajida qanaabiil maxaa dhahdaa bamam badda ay bom dhigaan oo ay xidhaan laba badda qaaswiin dhaqaalaha adduunka ugu weyn baa maraa iyo badda la dhahdo badda cas iyo khaliijka cumaan intan ay xidhaan dhag qawaaciddiina ay garaacaan taasina maxaa ka dhalanaya inuu sare kaco dhaqaalaha adduunku gaasku inay maaragtay dhaqaale xuma dhacdo iyo tadakhum inuu adduun ka dhaco waxaasoo dhan baa la filaya marka waa bariga dhexo dhan baa ololaba taas waa midda koodayaan midda labaad ee la filaya waxa weyaan inuu maraykanku paralis ku sameeyo iiraan oo ay waxba dhaqaajin kari weydo waa suurtagal baa idin leeyahay shalal uu ku rido oo waxba ay dhaqaaqi waayaan wuu diiday in wax dhaqaaqdaba sidii ciraaq oo kale ku dhacay inkasta ciraaq iyo aad u kala badan yihiin waa ta labaad taasina midda saddexaad waxa weeyaan in israa'iil ay xoog u garaacdo labada habeen ee soo socota oo waxay sheegeen isticmaali doonaan hub ay weli isticmaalin taasina ay keento in ay ragga la taliya Trump way dhaqaaqeen ay dhahdaan arintani miiska lagu soo laabo Iiraanna ay tiraahdo anigu cadaan cad nuclear ma samaysanayo laakiin mashruucayga nuclearku ma aha dagaal waa nabad marka Israa'iil Iiraan oo noocan ma aan wada dumin ay miiska ku soo noqoto saddexda la filay wata saddex mid baa la filay insha Allah aad baa santahay aad baa mahadsantihiin daawadayaasha waa kan siyaadna aad buu ugu mahadsan yahay barnaamijkanaga xaggasan ku gabagabeeyna assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa ka insha Allah assalamu calaykum jazakumullahu khayr assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh